iyadoo maalinimadii shalay hay'adda ciidamada Kenya iskaga bixeen deegaanka faxfax dhuun ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu weydiiyay inay dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka halka ay dhaawaceen sargaal kale iyagoo horay u watay 123 askari oo kamid ahaa ciidanka xoogga dalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka gobolka Gedo waxay sheegeen in ciidamada Kenya ay dileen taliye ciidanka xoogga dalka faxfax dhuun iyagoo dhaawacay amaanduulihiisii sidoo kale ciidamada Kenya ayaa waxay ku eedeeyeen saraakiisha ciidanka xoogga ee gobolka Gedo in ay hubkii ka dhigeen 123 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga horeyna ay u wateen markii ay ka baxayeen deegaanka faxfax dhuun ee gobolka Gedo Korneel Aadan Axmed Xirsi Rufli oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga gobolka Gedo oo maanta magaalada Muqdisho kula hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay sidan kaaya markay shalay faxfax dhuun ka guureysay ciidankaas saraakiishiisii waxay soo joodiyeen inay ayagu ciidda leeyihiin oo harayaan oo ay birinayaan difaaca baardheere saraakiishii ciidanka xukuntay waa loo yeeray meel ciidanka ka baxsan baa loogu yeeray si shir loola qaato arinta looga qanciyo ka bacdina meeshaas waxa lagu dilay taliyihii horinta faxfax dhuun ninka la yiraahdo garaad waxa la dhaawacay abaaduulihiisii ciidankii meeshaas joogayna hubkii baa laga dhigay ayaga oo maxaabiisaha dalka Kenya la aaday nadeer intaan ka warqabno meeshaas labada sarkaal ciidanka xukunta looga yeeray waxa la dilay taliyihii ciidanka ninka la yiraahdo garaad faarax warsame waxa la dhaawacay abaaduulihiisii oo la yiraahdo Xasan Cabdi Maxamed labada nin waa dhimasho ninna waa dhaawac ciidankii intii horintii inteedii kalena qalabkii baa laga dhigay shan gaadiid ah oo ay labana transportation yihiin oo baabuurta waaweyn yihiin min saddexna ay yihiin teknika iyo ciidankiina maxaabiisaan baa loola taga adeer waa horin weeyo waa 120 ilaa 110 inta u dhaxaysa weey ragaas horin meesha deganayd bay ahayd waxa kale oo hadda halis ku sugan horintii deganayd degmada deegaanka Buusaar iyo ururkii deganaa degmada Ceelwaaq hadalkan ka soo yeeray Korneel Rufli ayaa imaanaya iyadoo deegaanka faxfax dhuun ay iskaga bixeen shalay ciidamada Kenya kana mid ah howlgalka Amisom sidoo kale wali dawladda Kenya kama hadal ka bixitaankeedii deegaanka faxfax dhuun iyo dilkan la sheegay inay ciidamada Kenya dileen sargaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya